وهاجاج آدي آد يوم هتسي هاي فرحان ودوانا كلاسو كلمي مقالة قولتشيد وكترسان قبل كأوضل هدي داود آد مغلي شرتي داد صومالي دو أي لحظان ووراب الله هذل دوانا يان وراب الله هذل كلفتي سيكو سواركي مقالة بلي قبدله مقالة مدح دا قبل كهود نكاسي والله يلاحظو حسن نور أمره ما هو كلي وراب الله هذل sida la ii sheegay isaga qudhiisuna uu iga waramay waxa uu aad ugu xeel dheer yahay dawad dhaqameedka iyo waliba xidigiska sheekadina dhaxmartayna sidan ayay u dhacday gacaago saddexan igu bilow waxa magacayga la yiraahdo Xasan Nuur Amare waxaana ku magac dheeray Xasan Jifil xasan waxa la ii sheegay in dadkii xoolaha baa dabiibto oo waliba khaasatan dhinaca kabista aad iyo aad ugu xeel dheer tahay hawshaas sideed u gashay markii ugu horeysay waxaan ahaa professor xaggan qoraal ku ah dhirta iyo qaabkan hidda dhaqameedka ah ee la qoro qoraalka marka fikirka waxaan ka helay oo aan ugu horeeyay hal baan kabay hashaana khashaafad dhudhunkii oo kala baan adinka dulgeliyay isla markiiba way ku socon bagaadhay marka xiraan u yar ooday dabadeed kadib geeli muddo dheer oo qiyaastii la dhowr ilaa 5 sanadood ayaan dhaqanka guud waxaan aad u kabi jiray ugu shaqayn jiray geela ilaa ma waqtigii uu nagu dhacay dagaalkii ugu dambeeyay gudaha ka dhacay aydkiina arrinteedu waxay aad ugu soo fiday xagga dadka markaa imka deegaankan aynu joogno iyo deegaanka wadada cadeys salaxlay iyo deegaanka wada bariis inta ka dhaxle ayadoo amba aan buko amba aan safeeriyo baxmoyana waxa ka jaba xagga dadka aniga kabaa geeluna dawaneef xoolaha isagu dadka oo la qiimo maaha marka imka mucaarad baa ku hawsaako ugu dambeysay nimad waxay ka soo qaadeen balaak saakadan ugu dambeysay qaalin jabay oo daanka ka jabay anigoo qaab yaro ku sameeynayo inaan ku dhajiyo qori yar iyo loox yar iyo xabag isugu sameeyo qaalinka suudaanka ku daaqo ay arintiina ugu soo gaadhay oo aan leeyahay war waxan ma aha deemka arinku ma aha kii dadka kii geeli iga daay walaalayaal jabninka lafaha aad kabta mooyaane waxa la ii sheego kale in lafaha madaxoo kale dadka dhaawacyadu ay ka gaadhaan inaad gurto taas aad u sameeysaa waan guraa waxaan ku sameeyaa oo kale oo waliba aan aad u sii dawad dhaqameed qaabkan dhirta oo kale waxa jirta qaar madaxa faash kaga dhacay amba ilaa xagga kale ka dilaacay hadii kulkaan la soo gaadho dhirta isla markiiba inuu qofkaasi qaar kaba mida ay magaalada iyagoo dhacsan markii aan sida mariyay markiiba qayl tageen dhir laftan soo celinayso soo toosisa qaar kale oo aan ku dhayo iyaguna dawad dhaqameeda xagga madaxa iyo xitaa xagga tolmaha xaggaana aad baan iyadana wadanka waxa dii horta ku nool oo dhan inta dhaqaatiirta oo inay Hargeysa ka sokaysa aniga kulkul baabi ma jeesi soo diraan ilaahan kaalayo dadkan iyo soo dhaadhaco xagga ka shaqee marka anuguna dadka waan isaga daneeyaa waxaan idhi warniyo caalamku ma aha tan waa laga tagayaa ummadan aan la noolahay ayuun baan u daneeyaa sida way tii gurida iyo kabniinkii gartay dhirta marka aad isticmaasho iyaga maxaad ku kala garataa markii hore sideed ku ogaatay waxaan ku ogaaday aniga oo yaro maydh iyo xiis iyo joogi jireenin aad dhirtan iyo waxaan ugu shaqayn jiray Allah u naxariistay adeerkay ahaa ninkan waxyaabahan ma aha wax baratisa ma aha qaybahan markaan waa ku shaqeeyo marka si qiyaasto waxaad moodaysaa qaar koodina karaama ku jirto sababtaas ay ku wadankan aan ku noolahay oo dhan waxa laga yaqaan Sheekh Alfa waayo ninkaasi ayay markii aan yaraa wixii tusi jiray dhiraha qaar kamida qaar qoladan xagga imka junuudaha jinka kale loo isticmaalo qaar loo isticmaalo xagga lafaha qaar loo isticmaalo nabaradan ay dhaqaatiirtu markiiba kula cararaan dadka ay yiraahdaan waa kansal qaar loo isticmaalo ilkaha cunitaankooda cunaha iyo xoqadoo kale qaar loo isticmaalo waxaas markay bari jiray waxaanu yooran jiray insha Allah markay 40 gaadhabad ku shaqeyn xagga dhirtan ilaa maana 40 gaadhaba ma bilaabin ba marka dhirtaad isticmaasho tusaale ahaan kuweba kamida waxa kamida kuwa lafaha kuwa dhiig joojinta
kuwo geela loo isticmaalayo kuwa dadka loo isticmaalayo mid walba way leeyihiin marka waxa haddaba cajiib le geedkan madaxa la saaro ayaa nin anigoo biyadhaamiskii gaadhi booyada wataa ayuu nin igu yidhi niyow gaadhigan ka soo dego markaasaan ku yidhi dadkii xoolii baan gaadhigan la gaadhaya waarbar ka soo dego waan dakhranay geedkii soo saar gacantaa qabto waxaan ku yidhi geedka waa kana la baxniyo sidaa yeel dabeedna adhigaaga neef ka gowrac ku dar inankaaga madaxa iga saar dheh dabeedna isla markii aan biyii shubaayo sidii yeelay bartan bankay ahaydoo ninkii waxaa la yidhi koomu ku jira isla kolkiiba markaasaan ku yidhi waar geedka hayga daadin annagaa la noo sakhireeya dabeedna waan ku noqday ninkii oo koomi ku jira ayaan ku yidhi waar ka sii maydh markii laga maydhaba isagoo indhaa kala qaaday ayaan sidaa u mariyey intan gaadhigii kaga dul tegayoo kolkaasuu yidhi nakeer haddabaad gumburuu qayl tegtida dabadeedna waa geed maxaa la yidhaha geedka magaciisa markaa geedka waxa weeyaan geed dee dadka in loo wada sheego dhirta maaha sababtaasoo ah haddii marka dadka dhirta loo wada sheego waxani oo isfasaqaya laakiin si gaar ah Cabdisalaam kugu sheegay hadaa la ka dhigo inta kala bixin laakiin dad far badan waxay tilmaamaan in de aqoontii dhirta loo lahaa iyo dadkii yaqaan ay si yaraanayaan oo haddaan la isu gudbinin de markaa in aqoontaasi oo dhamme ay lumayso adigu taa ma qabtid miya maya waxaan anigu aad ugu wanaagsanahay intanoo kale imika hadday raacdo dhirta kama qarsado dadka qaar baa markay dhirta la soo baxayaan dhinac u baydha dadka waan ka dhex guraa laakiin dadka waxaan ku yidhahaa aniga waxay igu lifaaqan bal sidaasi dhirtan dadka ku sacaynaya waa kuwane bal idinku qaada markaa dadkii waxay soo tijaabiyeen inay karaama ku jirto oo noloshan imika intan anigu aan nool ahadoo kale ay ku karaamaysan tahay dhirtanu marka waanay tijaabiyeenoo iyagu caafimaadkii way ka waayeen iyo sancadii ay ka doonayeen waxaa kaloo la ii sheegay in aad wax badan ka taqaano cilmigan dee hawada sare ama xidigiska bal hadda taasna wax nooga taabo waxaa weeyaan nin kastoo is yidhahaa waxbaa taqaanaana inay ka horeeyaan dadka aqoon badan taasu waa ta cilmiyan ee xadiisiga ah laakiin anugu imaka waddankan dhan aan ku nool lahay nin la yidhaaho Cabdilaahi Gaafuun oo galbeedkaa jira barigaa yaalo waddada waaxle leeyahay dhulkaa jooga iyo oday iska indhabeelooyna dhagjar la yidhaho imaka xagga indhaga xiga saddexdayadaa nin oo anuguna markii aan dhashay odaygaas wili baa la yidhi ninkaasi haddii uu cimrigiisu 40 gaadho waxbaa weydiin doontaa godkaana wuu dhashay ayaa jira marka waxaan dee aqoonta intan ka aqaano waa kow marka ugu horreysa meerayaasha marka xigta 28 god ee dayaxu maro marka xigta dabaylaha marka xigta tirada habeenka Soomaalida oo 365 habeena dee sida islaamka 7 ayaamood bilaha islaamiga ah marka waxa weeyaan way tameerayaasha kale maxaad noo sheegi karaysaa meerayaasha waxa weeyaan meerayaashu dee sida anigu aan marka dayaxya cadeed lagu daro waa 9 laakiin imaka subaxan saaka ah oo kale markii laba meero qurba imaka ayaamka toddobaadkii inala jooga mid weeyaan salaadu halka ka soo baxay mushtar baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa oogla la yiraahdaa xaggan maghribka galabnimadii ayuu ka muuqdaa oogle iyo libca muxuu ahaa ooglena waa la yiraahdaa libtoona waa la yiraahdaa oo xaggan galabnimada ka muuqda intii kale waxay ku jiraan dhicitaan iyo wareeg Ilaahay uu og yahay oo laba iyagu way wareegaan kolba caalamka Ilaahay meel buu geeyaa laga arkaa xidiga la yiraahdo saxal waa xidigyada wareegay kolba qaarada caalamka meel lagu arki karo marka gobolku ka dhaco xidigta la yiraahdo dagaarsayn leena fadhigeedu waa Hindiya laakiin kolkol ay Afrikadan dhexe sida uga soo wareegtaa caalamka ay xoogay socotaa haddana ku soo noqotaa xidigta la yiraahdo shukriya taasuna waxay ku maqan tahay qorrax soddon habeen ayay marka dhacsanaydii la socotay shamsa qorraxda afartan way la joogaysaa dambe halkaas dabad ka soo baxaysa marka halka markii ka dhacdo ay xagga qorrax subaxeeda ka dhacdo ay ka hooyato 7 habeen bay maqnaataa xagga markii ka dhacdana 7 habeen bay maqnaataa marka imika 7kii
afartan habeen ka bacdi ayaa xaggan ka soo baxaysaa xasano waxaa kaloo la ii sheegay in sidaad adigu qabto in ay isku xidhan yihiin qofka iyo xilligu dhasho dabeecadda qofku yeelanayo waxyaabahaas saamayn bay isku leeyihin hayo ilaahay ummadda uu samaystay reer nebi aadan adduunyada ku nool inta ka tira leegtay wuxuunba dhalatay 28 guud marka had iyo jeeraale waxa xadiisba ah had iyo jeeraale laba qof oo midna koonfur u dhashay Kismaayo kale midna uu Booramo kale u dhashay oo aan cimrigooda dabeecadooda la kala dhex fadhiisano isjecel baa jira labada qof maxarka sayniskooda maxaa laga ssoo qaadi karayaa inay isku god dhasheen laba qof oo aan weligoodna isugu taakilin oo jirtaan waa kala guud anigu waxaan dhashay March 22keedii 66 tusaale ahaan maxaa arrinkaygu noqonaya anigoo kale March taasi waxay doonaysaa maskaxdu aad looga shaqaysiiyo laguna fadhiisiyo bishaasi xagga marka ay carabiga ka bilato waxa la doonayaa bal halkay kaga fadhiisan karto waana waqti dheer baan ka soo gudbay marka waxa weeyaan goodkan dayaxa iyaba la isqaabilsiinaya dayaxa iyaba la isqaabilsiinaya 28 good marka dadkan aad arkayso waxay 28 good maxaad uga jeedaa xasano waxaan uga jeedaa ilaahay wuxuu abuurtay goodka la yiraahdo foocaar waa good rag iyo dumar wixii ka dhashaa waa qani baa la yiri marka ifka haday yimaadaan waxa ku xigta godan waxa la yiri hadii maalka oo dhan la wada siiyo waa hadii ilaahay idinkiisa hadii ilaahay baa ku shaqo leh hadii jaraale waxaad oran kartaa baa la yiri xeradiisa iyo maartay wixiisu marar dhigaan tacabkiisu waxa kale oo isku xiga maran iyo mareega dheer ilaahay baana dee godadkan meesha dhigay oo bini aadan mu samayn marka mareega dheer wax walba oo mareega dheer maranna dee ilaahay baa hadii bidinkiisa dib ku tubtay ku taala cilmiga soo hada garmis waxa xiga wabay xawdala dadka wad ka maqash waxa ku xigta babac oo iyaduna xidiga ma leh taasna ilaahay baa ku cilmi leh marka waxa kale oo iyadana xigta naaf madoobe wiilka ka dhashaa naafku madoobe ka dhashaa leeyo dhigta safar looga yeelaa hadii sakala reerka isagu kaligu hadhabaalay naafka madoobe waxa ku xiga godka la yiraahdo tar ya tarna tolka dadka u dhalaba baliiro kaasuna waa dad horkace marka hadaba waxaasi iyadoo aynaan inaynu ku dambaabno aynaan jecelayn oo arrimaha ilaahay tasarrufkan uu iska leeyahay oo xagga ilaahay ay ku xidhan tahay gudadkuna saasi Cabdisalaam kaliye marka gudadku dadkan aad arkaysaa ilaahay abuuray ee caalamka sidan u buuxiyay mid waliba caalamku wuxuu kaga leeyahay xagga duruufaha iyo xagga marka kutubta loo eegayo la leeyahay qofkaas waa maay qofkaas waa turaabi qofkaas ma garanaysaa buruudkiisa waa xagga biya xaggan maxaa loo eegayaa qofka sideed ummadda dhan ee marka inta ay nagu xirxirano 28 good qof kastaba kii ilaahay ifka ka keenay waa nasiibkii adigu keebad dhalatay marka 28 good anigu waxaan dhashay godka la yiraahdo foocaar way waana godka 28 good ee dayax maro madaxda u ah oo waxa la yiraahdaa xagga carabigana waxa lagu yiraahdaa asad baa lagu yiraahdaa marka taariikhdan kale caadiga ah xasanow 28 good sidee isu waafaqayaan 28 good dee waxay isku waafaqayaan bishu way ku bilatay kow way ku soconaysaa tire eegba ku bilatay habeen caawo waa bil labada mid bil saddexda mid bil shanta mid bil saasay ku soconaysaa waqti ya marka xalay toole waxa ugu dambeysay dayaxu wuxuu joogay faruur cirir godka la yiraahdo iyo xalada dayaxu taagna caawna wuxuu joogayaa jid barbaar habeen dambe wuxuu joogayaa jid gabar leh habeenka ku xiga wuxuu joogayaa jid diriq leh habeenka ku xiga wuxuu joogayaa lugud habeenka kale wuxuu joogayaa rab dambe maxay kala yihiin markaa meelaha uu joogay sheegaysa magaca guucd waxa la kala yiraahdaa kolka ugu horeysa waxa la yiraahdaa faraaci 7 god faraaci baa la yiraahdaa 7 godna naafa la yiraahdaa 4 godna dirir baa la yiraahdaa maxaan ku dhahaa 4 godna waxa la yiraahdaa daalalo 6na waxa la yiraahdaa cirir isugee marka isku soo wada celisana waa 28 good saasi marka magaca gudadkan dayaxu maraa shanta magac bay leeyihiin hay 12 bilood caadiga la xisaabsado iyo 28 good sidee isu waafaqayaan marka xasano waxay isu waafaqayaan tiro guud waxa dee jirta oo is waafajina
marka waxa la doonayaa saas oo kale in maskaxda laga shaqeysiyo si ay isu waafaqayaan laakiin bilahan ku sheegaya saddexda bilood ee dayreed waxay ku bishaan laba god oo afarta dirirka iyo laba god oo daalala iyo saddexda dayreed ku bishaan laba godka ugu dambeysay maran la yidhaaho iyo afarta iyo lixda cirarkana waxa ku bisha jiilaalka toddobada faraacida la yidhaahna waxa ku bishay guga toddobada naafaal la yidhaahna waxa ku bishay xagaaga saasay isu qaabilayaan marka 12 bilood waaye ugu dambeyntii xasana waxaa kaloo aan jeclay inaan ku weydiiyo dee la ii sheegay in hibooyinkaaga ay ka mid tahay inaad u dhaxayso waraabahoo kale iyo dadkaoo haddii la isfahmi waayo aad adigu kala dhex geshid adiga waraabaha siday isu fahantaan taasi waa wax jirta marka ugu horreysa waxa weeyaan qiyaastii sidan sheekada ku maqlay waxaa layidhi markan yaraa sida waraabahan u ciyi jiray ilamaa sagaalka sannadoodii meelaha joogay sababtaasaa hooyadaba waxaan ka soo gaadhay iyadoo islaamaha ku leh inankaa waan ka naxaado habeenba sida waraabaa u ciyaar midda kale annagoo caddaloolaynaa ayaan oo yaryar baan ku soo cararnay oo odayaashu laleeyay reeruha la guuro la arrisanayo beri markaasaan ku yidhi abtiyo laba waraaba ciyayaa wuxuu yidhi ku dhadow isoo gaadh qaalin iyo qaalin baan meel ku hor joogaayo dabeedna markiiba uu kaga siiyey cabaad kii ruuraya markuu soo galay qaalintii baanu qalanno uu dooxay oo gugii baanu siinay sabeeno nin reerkeen kow midda kale dadku waxay yidhahaan qofku wuu isqaawiyaa uu isdhex tagaa anugu xaniis ma qaawiyo meelishii kastaan joogo foox yaroo lubaanahun baan qaataa markaan waraabaa doonaya xalay oo ugu dambaysay reer agteeda ah qoladan qaalinku ka jabay ayaa igu soo kalahday anoo islaha ku kalah gabadh baa ka bugtay reerkii ilaahay unbaa yaqaana habeenka xalay wuxuu ku sameeyey aadhiga wuu isu daatay wanankii iidi way isu daateen dabadeedna gabadhii dabadda u soo baxday iyaduna way qaylinaysa ciraashkaana laga keenay nabsaddana waxaan ka doonay gabadhaa inuu jinkaa ka cuno dabeedna wuu mashaxarada ayaa lalalala kulba wuu isla jiidhaya ma garanaysaa ta kale laakiin xasanow marka la leeyahy waa waraaba la hadal qofkaasi maxaa lagula hadlaa luqad nooceeya waxaan dee lagula hadlaa codkiisa qofka yaqaano unbaa la hadlaayo uno halka hadduu imaka uu ka yidhaaho inteenna oo dhanoo shira ayaan leeyahay imaka waxaasuu ina yidhi waraabo masalan waa dareen ilaahay keena sababtaasoo ah markaaba waxaan odhanayaa waraabo wuxuu leeyahy waar waxaasuu ina yidhi qaybtaana waxaa haddaba ugu cajaayib badna dee markay dadka islaayaan oo ay qoladii geela kala laayeen xabadda la daba jabacsataa imika waa nabad xoolahooda lama soo xariyo dabadu ka soo gaxay haddii kadib jiraa waxaan idhahaa war dee nabadun baana ugu qurux badan ya saad garamis marka qaybo caynkaasa ayaan ugu dhex jiraa naftaydu markay doontana baalka horta ma wanaagsana barashadiisii oo aakhirtu waxa la horta ninkan afiiqaano ma sheegeen oo meelaha kale kaga baroorta mooyaane soo aad garamaysid laakiin aniga wuu sheego arafadii saddexaad caloosha laga qala anigoo gaari laygu qaaday oo qaar nin kabay kii kalena haddana gaari laygu sii sidoo gumraa ku soo noqday halkan soo taago wuxuu yidhi war ninkaa kabi maysidii haadhade iminka isagii dee ninkaa kabi mayside dhakhtarkaad gelaysaa kusii dhiman maysid dabeedna marka labadii mataanoo taa isku hagaajiyey sanyaro caraalaa laydhaa gumburahan u jooga ay taabsuna ee hadhimaan labada indhood waxba ka arki waayay dem markaas inta saa wax ugu yaro malluuqay ayaan ku yidhi waa ninkaa u geeyeyna aadaniyo layma qorin kana intan baashaa u dhacay halkiiba ambalaas laygaga qaado marka hadda horta waxyaaba mashaakila weeyaan bahalka qudhiisa marka aad sii yar magaranaysaa laakiin ciidiisa say isu qabtaan dadka waxay isu qabtaan dadka qaar buu khayr u yahay qaar xooluu ka yar yihiin qaar buka waxyaabaha isagaa sheega markaa uu reer u dhaco masalan reerku su'aashka tuudan idhaa maxaad ku samaysa isagoo rooraya buu idhahaa fasal caynkaasaan ku galla waalidiintoodii baan dhaxlin xoolahan ayaanu ka dhaxlin xoolo dhexalaa xerada ku jira xitaa sakada lagama bixiya buu leeyahy waxba lagu yar cadaadiyey xitaa wuxuu odhanayaa baadida ayaa reerkan rug u lahaydoo way xalaalaysteen xitaa waa ribo cun oo waa qolada caalamka wax ka soo cuntay afmiishaariinta ah marka waxbaa halkan reerkan ku yara biiro odhanaya qaarna wuxuu odhanayaa innaa lilah kaa waanu u ducayne furihiisii baabanu ahayn haddaanu neefka ka qaadannay qaar bukayna an cashar kelima loo dooni maayo odhanaya neefkuu kala cararayaa laakiin marka waraabahan joogaa waa waraabo galbeed ka yimioo reer nadiir baa laydhaa waa waraabe allay badiya dhulkan joogi jira gaagaabnaa
dabeedna waa bahal bilaa sharciho nayluhu oo mareeru kala leeyahay isaguna sida dadka kale waa qabiilooyinkiisu way farabadeen waxa la yiraahdaa ukud iyo aakad iyo warda iyo nadiir iyo kooshin iyo dabayl iyo ina qayta burro iyo huluul iyo idiin iyo cagay iyo reer baliid magacyo fara badan oo caynkaas u leeyahay xagee markaa kala degaan xasanow qaaradaha Soomaaliya unbay ku kala degaan qoro waliba waxay leedahay mid kabiiraho cad oo weyda oo xaruura oo aan isagu meel tino madow lahayn ayuu leeyahay iyo qaar ka hooseeyo fiqiya la yiraahdo marka xasanow tan Soomaalidu ay isku xiriiriyaan waraabaha iyo markaa jinka oo kale maxaa ka jiray kulatay adiga ogaanta aniga imakadan nin baa saaka gurigii weydaartay waan ku sheegay Ilaahay baa horta amarka iska leh ka wax bixiyaana waa alle nin baan in badan diiday idankan joogo lahaa inanta waxaan ka soo qaaday Hargeysa jin baa ku jira culimada markii Quraanka ku akhriday waxay oranayaan xasin shafilin baan uga tageynaa ninkii markaa saaka gurigii galsoo hadlay haddadan wuu noo weydaartay koow annagu iman kara ma ilaa birloodo ay rabkooda wax dhirayo alaabtana ma hayo imika soo sii socda hadan qulacawdi ku akhriyo gabadhaas uu shaqo tagisa midda kale qolada madaxa si adagna qoladan aan ku sheegay baan ugu yeedhaya wuxuu balnay war hebelow reerkan wax ka qabta alla ma ku soo noqon meeno oranaya marka faryaradu ka xidhan tahay macnaheeduna waa caynka ku waana xasan aad iyo aad baad mahadsantahay